بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان تنبا وان مشغول سناي، الحمد لله مشغول في وان كسوب حي. إن شاء الله دروستنا وبرتين هذا كان كسيبه دونا إن شاء الله. waxaan soo bilaabnay tafsiirka faatixa. waxaan soo wadnay tafsiirkaasi faatixa maxaa laga faa'iidaysan karaa aayadaheeda. bal suurat alfaatixa waxaa ku jiro, waxay sugaysaa nabiyaalka intay nabi yihiin. allah subxaana wa tacaala inta soo dirsaday rususha bay suuradda tusaysaa. haddaa lagu dhahaa kasaar suurat alfaatixa aayada tusaaya allah subxaana wa tacaala intiis dadka ibni aadamku soo diray rasul daliilka soo saar, haddaa lagu dhaha maxaa soo saari kartaa? su-aashaasi jawaabteeda maamaanta insha allah ka jawaabayna. suurat alfaatixa waa suuro weyn oo mug weyn leh, magacyo badan way leedahay, hore siduu soo sheegnay. haddaan soo galna 5 daliil baa ku sugan, ka badan waa laga heli karaa, laakiin 5 daliil baa wacad cad ay sugaysaa nabiyaalka inta nabiyaal allah subxaana wa tacaala u soo diray bani aadamka. suurat faatixa 5 daliil oo cad baa ku jiro. daliilka koowaad waxaa waaye allah lafdu ljalaala. haddaad rabto tusabix bismi illahi raxmaan raxiim aaya min alfaatixa waa dhayo allah idaad ku jirto soo saar, ama alxamdu lilahi ayad allah idaad ku jirto soo saar. idan lafdu ljalaala wuxuu tusinayaa allah subxaana wa tacaala inta isleeyahay cibaado gooni ah. cibaadadaasi rabbi lahaay ma lagu garan karo habka lagu caabudi lahay allah subxaana wa tacaala, ma lagu garan karo caqliga mujarad caqli mujarad ma lagu garan karo habka alla loo caabudi lahay. caqligu sugaya inta allah subxaana wa tacaala ku abuurtay oo jiro oona kugu leeyahay shukri, oo inta isku shukris isku mahadnaqdo askuu leeyahay caqliguu sugaya, laakiinse ma garan karo habka loo caabudi karo allah subxaana wa tacaala. ma 5 salaadood lagu caabudaya, ma soonka bisha soona ramadaanka ma la soomaya, baytul xaj ma la xajinaya, waxaasi caqli ma loo ogaan kare. waa nabiga kuu sheegi lahay waa intaas imaado. ina lafdul jalaala baa ku sugaya oo sugaya allah subxaana wa tacaala intii soo dirsaday rasul. allana rasul manoo sheeginoo mana dhihin saas iyo caabudo toos rasul manoo dhihin, ee rasul baas noogu soo dhiibay. rasushii noo soo dhiibtana soo gaarsiisay si allah subxaana wa tacaala loo caabuday. lafdiga arraxmaan soo qaadana bismi illahi haddaan kusoo bilaabo. arraxmaan lafdu jalaala, lafdigaasi waa alle naxariista badnaay. naxariistiisu waxay keenaysaa intii allah subxaana wa tacaala naxariis badan yahay oo addoomihiis ku fiirsado baadi iyo dhumitaan ku fiirsado, allah subxana wa tacaala wuu ka naxariis badan yahay. allah subxaana wa tacaala wuu ka naxariis badan yahay intii addoomihiisa ku fiirsado intay dhumaan oo baadi ku dhex fiirsado, ayagaa baadi iska fiirsado oo iska daawado, allah subxana wa tacaala wuu ka naxariis badan yahay. idan naxariistiis waxay sugtay intii allah subxana wa tacaala noo soo diray rasuul. idan nabi sal lla ly slm muxuu yidhi raxmatan lilcaalamiin. nabi muxuu ku yidhi raxmatan lilcaalamiin. allah subxana wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi naxariis waxaa usta adduunka dhan. idan waa naxariis rasusha la soo diray, baadi managu fiirsin allah subxana wa tacaala. lafdiga kale waxaa waaye arraxiim. bismi illahi kasoo bilaabnay arraxiim, alihi naxariista gaar ahaan naxariisanaya. naxariista gaar ahaan waxay imaadaa qiyaamo iyo micaad ay sugaysaa, iyo waxay sugaysaa maalin abaalmarinayo intay jirto oo gaalo loo naxariisanaynin, muslimiintana loo naxariisanayo. idan waxaas waxaa noo sheegi kara rasuul. caqli mujaradka iyo fikrad mujarad la iska aamino maaha, caqliga ma sugi kare rasuulkii noo sheegi lahay intii maalin qiyaamo jirto waa intii noola soo diro. daliilka afraad rabbi alcaalamiin.
rabbi waa barbaariyaha barbaari midka barbaarinayo addoomihiisu hadda Allah subxaana wa tacaala cunto iyo ku siiyo waxaas cunto iyo meelaas saaxato ku siiyo iyo meelaas ku hooyeeto haddana wixii ka muhiimsanaa cunida iyo cabitaan ka muhiimsanaa isku siin waayo taasi naxariis ma ahaanin ikhwati alacizaa idan raxmatan lilcaalamiin ama hawa rabbi alcaalamiin rabbi adduunkana akoonka dhan rabbigiis waayo inay midka barbaarinay oo soo barbaari oo soo kobci oo abuurka soo bilaabo min calaqatin ya min mudqatin kasoo min nudfa kasoo bilaabay ilaa ibni aadamkan weyn oo kula hadlay maanta noqday intaas kusoo egeysiyey maanta inta ku baadiyeeyo Allah subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay idan xujada asku baadiyo leed lagu soo diray maalik yawm الدين waa daliilka shanaad waaye waxay sugaysaa Allah subxaana wa tacaala inta leey maalin lis awaal mariyo maalintaas lis awaal marinayo ahadkan oo sheegay waa Allah subxaana wa tacaala waxaana soo gaarsiinay rasuushii daliilka lixaad aan ku daran waxa waaye iyyaka nacbudu wa iyyaka nastaciin Allah subxaana wa tacaala inta leeyahay cibaado oo cibaado kaliis leeyahay oo ahad la wadaaga jirin aqligu garanaya taasi laakiin cibaadada qaabka loo caabudi lahay Allah subxaana wa tacaala waa inta noo soo diray rasuul ya idan suuradu dhamaalaaba daliilka toddobaad aan ku daray ihdina siraat almustaqiim wa bari iyo bariyatan oo Allah subxaana wa tacaala la bariyay ikhwati alacizaa idan Allah isbariyayso bariyada yaa kuule Allah subxaana wa tacaala taas bariyi lahay maxaas weydiisanaynin habkay ugu tawasuli kartaa bariyadaada waxaas kulli rasuusha noo sheegay ikhwati alacizaa waxaan ka faa'iideyn maanta videogan iyo clipkan yar toddoba daliil oo faatixa ku jiro oo sugaya mabcathu rusul rususha soo saaritaankoodii bani aadam mid rasuul loo soo diray sugaya daliilkaasi baa ka faa'iideyn toddobadaas daliil الله صب الله الرحمن الرحيم كحجني رب العالمين كحجني مالك يوم الدين دليل شان هذا كله إياك نعبد دليل الحاد يهدينا الصراط المستقيم دليل تضوات دليل بانكسوني رسول أنت الله سبحانه وتعالى وصدري بلا آدم إخوتي الأعزاء أنت بس في فيديو هنا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد